iminka maqaayadaas aan idinkala hadlayo ee aan idinkaga soo duubay muuqaalka waa bartii youtube-ka ee Sharma Boy wiilkii libaaxa ahaa ee qoraga ah ka hawatay ee ka degay Garawe waxaa sii xogeystay oo waji cusub yeeshay dagaalka dhanka baraha bulshada ee u dhaxeeya Daahir Cabdulle Calasow iyo fanaanka caanka ah ee Sharma Boy. waxa ay maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada ka taagnaa khilaaf xooggan oo dhanka isweerara oo ka dhaxeeya fanaanka caanka ah ee Sharma Boy iyo Daahir Cabdulle Calasow oo dhanka baraha bulshada caanka ah. Daahir Cabdulle Calasow ayaa baryahanba dagaal culus uu kala dhaxeeyay kadib markii ay khilaaf weyn uu ka dhex qarxay oo dhanka baraha bulshada. wax walba waxay isbedeleen markii caawa uu baraha bulshada soo galay ambartiisa youtube-ka ee Sharma Boy uu ku lahaa uu Daahir Cabdulle Calasow ka soo dhaxadlay isagoo oo sheeganaya inuu la wareegay hadda ka bacdina halkan ay kala socon doonaan. Sharma Boy youtube-kiisii ayaa Daahir Calasow ka soo hadlay isagoo oo yidhi aniga ayaa la wareegay halkan gacanta ku haya hadda ka bacdina aad kala socon doontaan ayuu yiri Daahir Cabdulle Calasow oo soo galay barta Facebook oo ku leeyahay. dad badan ayaa yaab ku noqotay kadib markii la arkay isagoo oo sheegaya in la maamulayo oo dhammaan heesihii iyo barnaamijyadii ku jiray halkaasi uu Daahir Calasow sheegayo gacanta inuu ku hayo. dadka baraha bulshada ayaa caawa si aad u falaqeynaya iyagoo oo sheeganaya in Daahir Cabdulle Calasow uuba dad hore sidan oo kale uuba ugala wareegay bartiisa youtube-ka. dad badanna la yaab ayaa ku noqotay markii youtube aad gacanta ku haysay la arkay isaga oo qof kale sheeganaya inuu la wareegay. Daahir Cabdulle Calasow iyo Sharma Boy ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka taagnaa khilaaf xooggan oo dhanka baraha bulshada kadib markii ay isku qabseen dhanka iyo baraha bulshada iyada oo dad badan oo kala taageerayana baraha bulshada lagu arkay. Daahir Cabdulle Calasow ayaa ugu baaqay dad badan oo kale inuu sidan oo kale ugala wareegi doono baraha bulshada isaga oo sheegay in uu youtube-ka sidan oo kale uga soo dhaxali doono. dadka qaar ayaa Daahir Cabdulle Calasow ku tilmaamay nin baraha bulshada xoog ku leh oo ah dhanka iyo IT-da uu ku taqasusay sida dadka qaar ay sheegayaan iyaga oo dadka qaar Daahir Cabdulle Calasow sidan oo kale ayuu Daahir Cabdulle Calasow uu dayaxdal heesa badan oo lahaa youtube-ka uga saaray isagoo oo sheegaya inuu u hoggaansami waayay waa sida uu sheegay shuruudo uu hore u soo bandhigay. laakiin tan waxay imaanaysaa ama dad badan la yaab ay ku noqotay markii youtube-kii uu Sharma Boy ku lahaa baraha bulshada la arkay Daahir Cabdulle Calasow oo iska maamulanaya sida la arkay ama laga dhexleehanayay caawa barta youtube-ka. Sharma Boy iyo Daahir Cabdulle Calasow ayaa in dhaweydba waxay isku haysteen baraha bulshada kadib markii heesa badan uu qaaday Daahir Calasow ka carooday isagoo oo sheegay in showyadii Muqdisho uu ku qabtay uu la hadlay uu ka joog uu Sharma Boy uu ka dhagaadagay. fanaaniin kale ayaa saan oo kale Daahir Calasow uu sheegay inuu ka jabsan doono laakiin wada hadal dheer kadib waa lagu Cabdulle Calasow ayaa mar dhaweyd bartiisa Facebook qoraal uu soo dhigay sheegay inuu dib ugu celin doono wada hadal dheer ka bacdi oo uu sheegay in khilaafkii ama uu sheegay wada hadal dheer ka bacdi inuu u celin doono Sharmaarke Cabdinaasir Maxamed Sharma Boy bartiisa youtube-ka ahayd kadib markii dad badan ay la soo hadleen waa sida uu ku soo qaray bartiisa Facebook-ka. la soco barnaamijyada aanu idinkaga diyaarnay meesha laga yaabo inuu ku dhamaado ama khilaafkaasi walow hadda wada hadal lagu jiro.